رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله walaalayaan ilaahi tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah, haddana naga dhigay ummaddii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waa nicmo ilaahi uu nagu manaysay tabaaraka wa tacaala. waxaan ka hadlaynaa kayfa nastaqbilu wa nuraxibu shahra ramadaan, sidaan u soo dhowaynaynaa bisha ramadaan. ilaan bisha ramadaan baa cala alabwaab ayna soo foosaaran tahay. bisha ramadaan sidaan u soo dhowaynaa, ma waxaan ku soo dhowaynaynaa sida dadka qaarkii ay sameeyaan raashin badan, sharaab badan, turub, ciyaar waxyaabahaas, mase ma waxaan ku soo dhowaynaynaa towbadkeen iyo istikfaar iyo qur'aan akhris badan iyo khayraad badan iyo taacaad? waxaan ku soo dhowaynaynaa bisha ramadaan bitawbatin wa awbatin ilaa raafici asamaa'i bilaa camad, inaan towbad keenno, aan u laabano ilaahaygii cirkaan taagay tiir la'aan, allahaasaan u laabanaynaa tabaaraka wa tacaala. istikfaar badan baan la imaanaynaa si bisha ramadaan uu nooga soo dhasho anagoo nadiifa, ilaahay towbadeena aqbalay subxaanahu wa tacaala, oo markaa cibaado fara badan aan samayno. waxaa aad u wanaagsan walaalayaal qofka muslimkaa jadwal inuu samaysto. bisha ramadaan maxaa kuu jadwalaysan? bisha ramadaan meeqa jeeraad ugu tala gashay inaad qur'aanka dhammaysid? imaamu shaafici raximahu llahu tacaala 6 jeer ayuu khadmay, 6 jeer bisha ramadaan. hal khadmana maalintii uu akrinaa, hal khadmana habeenkii uu akrinaa. markii laisku daro waa 6 khadmo. bas kaana yatafaraq liqiraa'ati alqur'aani alkariim, kaana yatafaraq litilaawati alqur'aani alkariim. qur'aanka akhrintiisa ayuu u faaruq noqonayay. maxaa yeelay qur'aanka bisha ramadaan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan. saas daraaddeedi maxaa kuu jadwalaysan? maalintii xataa hal jeer hal khadma ma heli kartaa inaad dhammaysid? bishii waxay kuu noqonaysaa 30 jeer, 30 khadma inaad dhammaysid. xataa 20 khadma ma niyaysan tahay? ugu yaraan 10 khadma xataa ma niyaysan tahay? waa inaad niyaysataa min alaan caziima, waa inaad gaartaa. wacalaa qadri ahli اlcazmi ta'ti alcazaa'imu wata'tii calaa qadri اlkiraami almakaarimu watacdumu fii cayni الصagiiri sigaaruhaa watasguru fii cayni اlcadiimi alcadaa'imu. waxaa laisku dhaafay ayaa waxay tahay caziimada iyo go'aanka qofka uu la imaanayo. hadda haddii jadwalkaagii uu yahay bisha ramadaan 30 jeeraan dhammaynayaa qur'aanka, waad dhammayn kartaa. maxaa yeelay ilaahay niyadaadii ayuu kugu arsaaqayaa tabaaraka wa tacaala. nin walbana calaa qadri niyatihi ayuu ilaahay ku arsaaqayaa subxaanahu wa tacaala. marka bisha ramadaan ee barakaysan walaalayaal, aan ku soo marxabayno, aan ku soo dhowayno bikahrati tilaawati alqur'aani alkariim. qur'aan fara badan qofka inuu akhriyo. imaamu shaafici hadduu 6 jeer khatimaayay, adiga qorshahaagii muxuu yahay? go'aankaagii muxuu yahay? jadwal maxaa samaysatay? mas xayawaan oo kale waa iska socotaa le? bisha ramadaan inuu xayawaan oo kale kugu soo dhasho uu kugu dhammaado ma aha. bisha ramadaan dadna waxay helayaan ilaahay raali ahaanshihiisa subxaanahu wa tacaala, ilaahay dembi dhaafkiisa tabaaraka wa tacaala, ilaahay raxmadiisa tabaaraka wa tacaala, akhiiran ilaahay naarta inuu ka xoreeyo. laakiin yaa waay kuwaas? waa kuwii ka faa'iidaystay bisha ramadaan. marka walaalayaal, aan ka wada faa'iidaysano bishaa barakaysan ee qiimaha badan, aan ka wada faa'iidaysano, aan ku dadaalno casiimadaadi go'aan ku gaar bisha ramadaan markay ugu yar tahay. 6 jeer haddaanan dhammayn karin xataa 30 jeeraan dhammaynayaa. aan ku dadaalno bisha ramadaan saan ku soo qaabilayno, ama aan ku soo dhowaynayno, ama aan ku soo tarxiibinayno inuu noqdo xaaladihii salafu saalix ay ku soo dhowaynayeen. nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana yubashiru asxaabahu biquduumi ramadaan. ramadaanka markuu soo geli rabo ama uu soo dhow yahay, asxaabtiisa u bishaaraynayaa. wuxuu ugu bishaaraynaya ramadaan imaatinkiisa. waa marti weyn oo 1 sano aan sugaynay.
ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa khayr iyo caafimaad iyo nabad iyo amni iyo ammaan ilaahay inuu nagu gaarsiiyo ilaahay inuu naga dhigo duulka loo naxariistay duulka loo dembi dhaafay duulka naarta lagu xoreeyey ilaahay inuu nagu daro tabaaraka wa tacaala intaas allah nagu anfaco وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه